taariikhdu kulka ay 2012 ay Soomaaliya codsi ku biirsayd u gudbisatay dalada bulshada bariga Afrika semelafkeedii waxa lagu tuuray dhulka waxaana lagu tilmaamay inay tahay dal aan u qalmin kamid ahaanshaha dalada bulshada bariga Afrika iyadoona lagu aaneeyay xilliga inaysan lahayn deganaansho siyaasadeed iyo waliba mid dhaqaale si ugu dambeyn shalay oo Jimco ahayd ayaa la aqbalay malafkii 11 sano ka hor dhulka lagu tuuray waxayna warbaahinada caalamka sida Al Jazeera, Daily Nation, Reuters, BBC iyo waliba Africa News daabacayn ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay dalada bulshada bariga Afrika sidoo kale waxa baraha bulshada Soomaalida la isla dhex qaaday isku tahniyadeynta ku biirista aynu ku biirnay dalada bulshada bariga Afrika haddaba daawade waxaynu barnaamijkan ku lafaguri doonaa waa maxay faa'iidooyinka iyo waliba khasaaraha aynu kala kulmi karno talaabada aynu horay u qaadnay ee ah ku biirista dalada bulshada bariga Afrika inta aanan gudagelin barnaamijkeena waxaan aad u soo dhaweynayaa saaxiibadeena cusub ee ku soo biiraya channelkeena YouTube-ka iyo waliba page-keena Facebook-ka waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin inaad share gareysaan channelkeena si ay dhiirigelin inoogu noqoto una soo badino barnaamijyada xiisaha leh waxaan kun iyo kow jeer idin leenahay mar kale soo dhawaada saaxiibayaal dunida aynu haatan joogno ayaa lagu caanamaalaa ka mid noqoshaha urur iyo isbahaysi oo waa sababta aynu u maqalno had iyo jeer ururka gaashaanbuurta NATO, ururka jaamacadda Carabta, ururka midowga Yurub, ururka midowga Afrika, ururka IGAD, ururka BRICS iyo waliba ururo kale oo badan sidaas si la mid ahna wadamada kale ah Tanzania, Kenya iyo waliba Uganda ayaa u xigtay 1970 inay dhistaan urur ay ku midaysan yihiin dhaqaale ahaan si dhibaatooyin dhaqaale oo mid waliba haystay ayaa riyadoodii u diiday inay rumeeyaan sama aynan quusan oo waxay dib u midoobeen 30 November 1999 iyadoona kolka magaalada Arusha ee dalka Tanzania lagu saxiixay heshiiska asaaska dalada bulshada bariga Afrika ugu dambeynna heshiiskii waxa uu dhaqan galay 7 Luulyo sanadii 2000 kadib markii dhammaan saddexda wadan ee Tanzania, Kenya iyo waliba Uganda ay ogolaadeen ansixiyeenna kuna wareejiyeen ogolaanshahooda rasmiga ah xogayaha guud ee dalada bulshada bariga Afrika taariikhdu kolkay ahayd 2007 ayay wadamadan go'aansadeen inay balaariyaan ururka iyadoona 18 Juun 2007 ay ku soo biireen Burundi iyo Rwanda 2011 kolkay koonfurta Suudaan ay ka madax banaanaatay dalka Suudaan ayay codsatay inay ku biirto ururkani si waxa ka hor yimid codsigoodii wadamada Uganda iyo Kenya iyagoona ku tilmaamay inaysan noqon karin dawlad buuxisa shuruudaha u degan ururkani si ugu dambeyn 2016 ayay aqbaleen codsigii koonfurta Suudaan 2019 waxa dalbaday inuu ku biiro ururkani dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxaana la soo aqbalay codsigeedii 2022 haddii aynu fiirino sooyaalka Soomaaliya iyo dalada bulshada bariga Afrikana taariikhdu kulka ay 2012 ayay Soomaaliya codsi ku biirsayd u gudbisatay dalada bulshada bariga Afrika semelafkeedii waxa lagu tuuray dhulka waxaana lagu tilmaamay inay tahay dal aan u qalmin kamid ahaanshaha dalada bulshada bariga Afrika iyadoona lagu aaneeyay xilliga inaysan lahayn deganaansho siyaasadeed iyo waliba mid dhaqaale ma aynan quusan Soomaaliya oo 2016 ay haddana codsi kale gudbisatay si waxa la siiyay jawaabtii hore oo kale oo ahayd maya midin aqbali karno waayuhu wuxuu isrogaba taariikhdu kulka ay 2018 ay dalada bulshada bariga Afrika waxay Soomaaliya u soo qortay codsi ah in dib u qiimeyn lagu sameeyo Soomaaliya si loo ogaado inay u qalanto ku biirista ururkan Soomaaliya si dawladda Soomaaliya oo xilligaasi hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa diiday codsigaasi iyadoona 2022 dawladdu uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh ay ku celisay codsi ku biiriseed ururkani si ugu dambeyn shalay oo Jimco ahayd ayaa la aqbalay malafkii 11 sano ka hor dhulka lagu tuuray oo haatan waxa ku midaysan ururkani 8 dal ee kala ah Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo waliba dalkeena hooyo ee Soomaaliya ka hor inta aynan ku biirin Soomaaliya ururkani ayaa dadweynigiisu waxay gaarayeen 283 milyan oo qof si haatan waxa uu noqday 300 milyan oo qof wax ka badan kolkii laga saaro Soomaaliya wadamada ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika ayaa badka dhulkooda oo la isku daray waxa uu gaarayaa 4.8 milyan oo kiiloomitir isku wareeg ah halka GDP-goodana lagu sheegay 305 bilyan oo dollar
iyadoona sanadkii la soo dhaafay ganacsiga dhexmaray wadamadani lagu qiyaasay lacag dhan 78.75 bilyan oo dollar. kolkii laga saaro Soomaaliya, toddobadan wadan waxaa kaliya bad ka lahaa wadanka Tanzania iyo dalka Kenya, oo labadaasi wadan xeebahooda hadii la isku geeyo waxay noqonaysaa 1960 kiiloomitir, halka Soomaaliya ay ku soo kordhisay ururkani suuq xeebeed cusub oo fidsan 3333 kiiloomitir. misana leh awood kheyraadka xeebaha sida saliidda iyo gaaska, oo haatan ururkani waxa uu leeyahay xeeb gaaraysa 5293 kiiloomitir oo loo isticmaali karo ganacsiyo aad u ballaaran. haddaba daawade aynu haatan u imaano ka jawaabista su'aashii ahayd maxay tahay faa'iidada aynu ka helayno ku biirista dalada bulshada bariga Afrika. muwaadin kasta oo u dhashtay 8 dal uma baahan doono fiiso si uu u aado 7 wadan ee kale. sidoo kale muwaadin kasta oo u dhashtay 8 dal uma baahan doono warqad ogolaansho shaqo si uu u aado 7 wadan ee kale. inaan ku biirno bulshada bariga Afrika waxaynu ka faa'iideynaa ganacsan inaan helno badeeco qiimo jaban. tusaale ahaan, haddii aan burka ka soo dhoofsan jirnay dalka Turkiga una bur uu soo saaro dalka Kenya, maadaama aan Kenya iskula jirno ururkani, waxaynu ka soo qaadan karnaa bur ay canshuur yari saaran tahay, ama dalka Turkiga waxa uu ku qasban yahay burkiisa inuu canshuurta inaga yareeyo maadaama uu og yahay inaan suuq kale oo Kenya ah haysano. inaynu ku biirno bulshada bariga Afrika waxaynu ka faa'iideynaa ganacsi ahaan inaan helno garab istaaga gorgortan suuqeedka oo wadankii alaab ama badeeco aynu soo saarno diida waxa uu diiday 7 wadan oo kale wax soo saarkoodii oo hal dhinac aynu ka soo wada jeesanaynaa. inaynu ku biirno bulshada bariga Afrika waxaynu ka faa'iideynaa shacab ahaan inaan helno badeeco nadiif ah oo ganacsatadeennu kuma dhiiran karaan inay keenaan badar dhacay ama daawo tayadeedu hooseyso. sidoo kale waxaa tartamaya shirkadaha tiknoolajiyadda ee 8 wadan, taasina waxay dani ugu jirtaa shacabka 8 wadanba. haddii aynu isla fahanay faa'iidada aynu ka helayno ku biirista bulshada bariga Afrika, haddaba maxay tahay khasaaraha aynu ka heli karno ku biirista bulshada bariga Afrika? ku biirista bulshada bariga Afrika waxaynu ku waayi doonaa madax banaani siyaasadeed iyo dhexdhexaadnimo, oo haddii ay 5 wadan oo ururkani ka mid ah cod u qaadaan in wadan alaabtii aan la soo dhoofi karayn, si walba oo aynu wadankaasi saaxiibo u nahay waxaynu ku qasbanahay inaan alaabtiisa ka fogaano. ku biirista bulshada bariga Afrika waxaynu ku waayi doonaa xakameynta waxa dalkeena soo galayo, oo ma joojin karayno qaadka Kenya inooga imaanayo, mana ku badin karayno canshuurta, oo canshuurta waxaa wada maamuli doona 8 wadan. sidoo kale waxaynu wax ku darsanay wadamo inaga dhaqaale badan sida Kenya iyo Tanzania oo iyagaba suuq inaga dhiganayo. sidoo kale maba jiraan wax aan soo saarno oo la taaban karo, oo arrinku waa sida annagoo nin 20 jir ah iyo canug yar hal weel wax isugu darnay, oo canuga yar inta uu 20 jeer qaadanayo ayuu 20 jirka 5 jeer ku qaadanayaa. xitaa haddii ay dhacdo inaynu badeeco soo saarno way adagtahay si aynu u gaarsiino wadamada aan badda lahayn ee ku jira ururka bulshada bariga Afrika, maadaama aan xuduud kala leenahay kaliya hal wadan oo Kenya ah. kaba soo qaad haddii aynu dhahno waxaa la dhisayaa wadooyin Soomaaliya ilaa Burundi ama soo Suudaan tagayo, ama waxaa la isticmaalayaa diyaarado si aynu wax aan soo saarno ugu iibgeyno wadamadaasi. alaabtii aynu soo saarno waxaa qaaliyeynaya gaadiidkaas aan ku daabulnay. dadka aan u geynaynana waa dad fuqara ah oo dalka dibadiisa wax ka yimid ma gadan karaan. sidoo kale maadaama ay tayada waxbarasheed ay naga sareeyaan wadamada qaar ee ku jira ururkan, dhaqaatiirtooda iyo macallimiintooda waxay shaqo u soo doonan doonaan Soomaaliya, taasina waxay sii badin doontaa shaqo la'aanta dhalinteena, taas oo laga yaabo inay sii siyaadiso tahriibka dhalinyaradeena oo kolkii horeba boorsooyinkooda gacmaha ku haystay. dhab ahaantii Soomaaliya uma diyaarsano maalgelino shisheeye, oo maba jiro ilaa iyo haatan xeerar xadidayo maalgelimaha shisheeye, oo sidaad ogtihiinba wadanku dhaqaale ahaan, amni ahaan iyo siyaasad ahaanba aad buu u liitaa kolkii loo fiirsho wadamada kale ee ku jira ururkani. ugu dambeyntiina dhab ahaantii ilaa iyo haatan ma muuqato nacfi la taaban karo iyo xeelad dhab ah oo degsan misana dan muuqato u ah Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Afrika. si waxaan Rabbi subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa inaynu talaabadii aan qaadnay inooga dhigo mid aynu ku aflaxno adduun iyo aakhiraba. kulleyba haatan waxaynu ka mid nahay dalada bulshada bariga Afrika ee. ugu dambeyntiina inta aan kaga kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal, dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.